بسم الله الرحمن الرحيم تصن تي في ما أنت واحد ورئيسي لله هاي محمد عمر عمل محمد عمر عمل كسر دو تصن تي في والله لو محسن تاي وكسر دو هاي وحنا بقينا واحد كودي قول ما كنت مسبت لنا والله waxay ugu dambeysay last August hadda la soo dhaafay bay ugu dambeysay wadankii walaal ma garat waa gartay in wixii kugu yaabanaa inta wareysiga nagalin Puntland ku soo hartay maxay wallahi waxyaalaha igu ajaa'ib ka badnaa waxay ahayd xagga diyaaradaha marka aad u socotid ama u safraysid Puntland way adag tahay xagga diyaaradaha Puntland dib baa ka haysta ummadii oo aad bay u dhib badan tahay diyaaradaha dhibaatada ka haysta Puntland ma diyaaradaha duulimadyada shacabku ay raacaan ba mise waa kuwa cargo waa kuwa shacabku ay raacaan oo internationalka ah khaasatan dadka aad bay ugu dhib qabaan ma garat way in waxaan maqlayay dhawaan in dadka reer Puntland qaarkood ay ka cabanayaan duulimadyada ka imaanaya Ethiopia oo kale marka ma Ethiopia kaliya laga cabanayaa bise guud ahaan duulimadyada imaanaya Puntland ay cabsi ku jirta walaal hadii aan ku saxo wax laga cabanaya ma ahan Ethiopia waxa laga cabanaya waa tigidhada waay sida aad la socotid Puntland waxa caalamka ku xira shirkadda diyaaradaha Ethiopia Airlines tigidhada marka laga soo baxay caalamka Sydney Australia marka laga soo baxay America marka laga soo baxay Europe meel walba oo aad rabtid tigid inaad ka goosatid waxa way aad buu tigidku qaali yahay marka la barbar dhigo magaalada Hargeysa tigidhadanu aad bay u qaali yihiin sababta marka tigidhada Puntland tagaya qaaliyeysay kuwa Hargeysa tagaya raqiisay ilan garowe iyo Hargeysa marka la fiiriyo way u sameeyay maani kara wala waan dhihi karo Hargeysa Ethiopia u dhowdahay marka kilometerka la fiiriyo dhinaca dhulka iyo hawada laga fiiriyo marka aad sabahan laga duulay marka taama ka qiimaysan idinku wallahi anaga oo rag badan ah waxaan sameeynaa baaritaan dheer baan sameeynay waxyaalaha aan baaritaanka ku ogaan waxa kamid ah dadkeena Europe jooga tigidhada agency kama aan goosano inta badan waxaan ka goosanaa online marka dhibka ugu weyn waxaan galay shirkadda Ethiopia Airlines homepage-keeda ama yamasidaheeda markii aan galay oo aan tigidhka ka goosanayo waxyaalo aad igaga yaabiyay baan arkay baaritaan dheer baan ku sameeyay waxa kamid ah economic class waxa la yiraahdo wuxuu u qaybsamaa 3 darajo darajada koowaad oo la yiraahdo promo iyo darajada labaad oo la yiraahdo semi flex iyo ta saddexaad oo la yiraahdo eco darajada la yiraahdo promo waa mid ugu raqiisan marka dhibka jira wuxuu yahay hadaa garow u socotid darajada la yiraahdo promo waa laga dhaqaajiyo oo kama helaysid waxa option kaagu noqonaya laba option laba doorashaad leedahay oo kala ah semi iyo eco labaduna waa qaali marka baaritaan dheer aan sameeyay waxaan ku ogaanay dhibka ugu badan oo qaaliyay adduunkan meel walba aad joogtay qaaliga ka sidhigay inay tahay arintaas oo laga xiray magaalada Garowe la yiraahdo aysan u haysanin Joyce inay doorato promo ticket marka macnuhu waxa weeye marka dalbanaysid tigirka oo computer ka baarisid branch waa Bahrain waa ka xiran yahay sababta marka tigidhka goosanaysid homepage-ka tusaale ahaan Ethiopia Airlines baa galaysaa waxa ku qoraysaa meesha aad ka safraysid iyo meesha u socotid markaas waxa ku soo baxaya list dheer baa ku soo baxay liisaskaas dhan marka ka dhex raadisid oo aad ku dhacdid kuma uu jiro waa ka maqan yahay qaybta la yiraahdo promo waa yahay ma laga yaabaa qiimo jabida labada airport Garowe iyo Hargeysa maadaama airportka Hargeysa muddo soo shaqeynayay hay'adaha duulimadyada iyo dadka shirkadaha ku shaqeynaya ay barteen ma laga yaabaa in halkaas ay ka socoto arintu oo ma u maleeyo wali barashada ay ku yartahay gobolka airportka magaalada Garowe walaal ma u maleynayo dhibaatada waxa way carrier-ka Ethiopia Airlines waxa way Garowe waa taga Hargeysa waa taga problemku wuxuu ka jiraa qiimaha tigidhka marka qiimaha tigidhkana waa ku sheegay hadda qaybta promo la yiraahdo magaalada Garowe hadda tigidhkeeda u socotid ma ka helaysid marna laga yaabo inaad wax promo la dhaho inaad heshid waa laga xiray ma tijaabisan diyaaradaha ka imaanaya Emirates oo imaanaya
puntland ama boosaaso ama garowe kuwaas tikirkoodu qaali baa iyaguna walaale ilaa iyo hadda waa la rajaynayaa inay shirkadda imaaraadka ah inay bilowdo haddii ilaahay nafta noo daayo deegaanada puntland laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax dhinacaas noogaga yimaado oo marka usoo safraysid magaalada garowe ama boosaaso marka laga reebo diyaaradaha ay leeyihiin diyaaradaha soomaaliga maanta waxaad isku timaadeen kulan odayaal Scandinavianka magacooda ku hadlayay bay ahaydeen wasaaradda ku shuqul leh dowlasta puntland ee arrimahan wax xiriir ma gudbiseen iyo cabasha walaale waan la hadalnay waana u gudbinaa cabashadeena waxaan u dirnay waliba documents cadaynaya mataqaana dhibaatada jirta annagoo isbarbar dhignay magaalada garowe iyo magaalada hargeysa oo tigidho far badan intaan mataqaana screenshot ama copy ka sameynay ayaa waxaan u dirnay mataqaana wasaaradda laftirkeeda dadka jooga dhammaantood oo ogsoon kuwa shirkadda Ethiopian Airlines u shaqeynaya iyo kuwa maamulka oo ugu sareeya wasiir Lugator way ogsoon yihiin dhibka meesha ka jira wax jawaab soo celiyeen wax jawaab ilaa iyo hadda kama hayno markii noogu dambeysay personal waxaan la hadalnay ninka la yiraahdo Lugator wuxuu noo sheegay hadayba ku khasabtay xataa inuu tagayo magaalada Addis Ababa waxay ahayd marka aan ka hadlayno 8 bilood ka hor bay ahayd wax uu tagana ma lahan ilaa iyo haddana wax ciladii taagneed oo arinta tigidhada ay fuliyay ma ay jirto sideedii bay u taagan tahay haddaad ka safraysid wadamadan oo dhan waxa weey tigidhka mar walba Hargeysa iyo tigidhka Garowe waa double way times 2 laba jeer buu ka qaalisan yahay tigidhka Hargeysa lagu tago magaalada Garowe marka u socotid waxaad soo qaadeen wadamada Scandinavianka oo runtii inaan ognahay dad balaaran oo jaaliyad aad u balaaran oo ka soo jeeda Puntland ba degan wadada Scandinavianka Norway Sweden Denmark iyo Finland intaba marka isku xir ma jira shacab oo arintan ay ogoloodeen inay ku xoojisaan si dowladda Puntland iyo dowladda Ethiopia iyo cid kasto ay qosayso in hoos loo dhigo tigirkan qaaliga ee dadku يعني أدبسناه والله اللي واقولنا أنا لما أنت جاليدها كنول عالم كدافيهس أمريكا أستراليا نيوزيلاند اسكندنافيان يوروب تكالت لما أنت وأسكو حرنا هاي أرنت توانا كم ده سنة هاي عبشة أنا معناها ضدك أولم بيتهابت مجاله وعالم وقفك جوجو لبك كم واحد تيجت كان وحنا نقول نقضي لف متقنا لون كشيب ونقول نقضي صوت ضدك وحي جيدان مجال هرجيس oo tigidkeedu uu yahay tusaale marka Copenhagen ka safraysid waa $800 ama $900 marka uu bato marka Garowe u safraysidna waa $1500 baa ugu yar marka dadkii marka dad badan waxay ku kaliftay inay Hargeysa door bidaan su'aasha wadada Faransiiska ka wadina waxay maxaa hadda cusub oo soo kordhay oo aad horay ugu arkoodeen dhibaatada ka qaylinaysan wallahi dhibaatada waligeed way jirtay waana la arkayay laakiin waqtiyo badan iyo marxalad badan bay soo martay bal sidii dadka loo xiriiri lahaa mar email baa la qori jiray mar telefoon baa la diri jiray hadda waxaan ugu khasabtay inaan telefishinada aan soo istaagno maadaama ciladii la xalin waayay oo la qaban waayay oo dadkay khusaysan aan la hadalnay sidaas waxaan ugu kaliftay inaan idaacadaha maanta nimaano aan soo istaagno baqa uu dambeeyay u jeedinaysid wasaaradda duulista hawada Puntland iyo dowladda Puntland guud ahaan maxay tahay والله باقي كواد waxaan u direynaa wasiirka dowlasta iyo hawada Puntland sababta oo ninka ku shaqada leh oo arintan xalin kara waxaan rajaynaynaa inuu arintan xaliyo sababta dhibaato badan ayaa dadkeena ay ku qabaan ilmihii iyo caruurtii waxay ka dagaan Hargeysa iyagoo door bidaay tigidhkaas raqiiska ah markaas waxay soo qaataan basas iyo baabuur waana taqaana waana garan kartaa distance-ga u dhaxeeya magaalada Hargeysa iyo Garowe jidku waxa jidad fiican ma lahan waa riski dadkii waxay u soo bareeraan dadka qaarkood iyagoo fiirinaya lacagtaas jaban ayay waxay soo maraan jid riski ah marka waxaan codsanayaa in arinta tan la xaliyo khaasatan madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Dani waxaan rajaynaynaa inuu isaguna ku baraarugo oo arinta tan soo fargeliyo waxna ka qabto dhageystayaal barnaamijkii Danson TV نورسيا وقاعدين محمد عمر عبل انت سنوكاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته